السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan ku soo dhawaada barnaamijkeena ogaalka dunida oo aan idin soo jeedinayo anigoo ah Maahir Jimcaale. waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan maanta insha Allah taala ciwaanka hortiina ka muuqda. waxaan idin leeyahay mar kale soo dhawaada daawasho wacan. xayawaano badbaadiyay nolosha dad bini aadam ah. xayawaanka babaqaa ee weli sanadkii 2008 xayawaanka babaqaaga ee weli waxay badbaadisay nolosha gabar yar oo jirtay 2 sano magaceedana la dhihi jiray Hannah Kask, taasoo ahayd mid ku quraacanaysa qolka gabadhii tarbiyeen jirtay. gabadha wax tarbiyeen jirtana waxa ay aaday musqul, kadibna cunugta yartahay waxa ay dareentay in dhuunta looga dhagan yahay markii ay laqday jab weyn oo buskuda oo dhuunteeda xiray, kadibna midabkeedu isku bedelay buluug, waxayna ku dhawaatay inay dhimato. xayawaanka babaqaaga ayaa waxa uu dareemay in gabadha yari ay ku jirto halis, kadibna waxa uu ku qayliyay erayga ah mama baby si weliba cajiib ah. kadibna waxaa dareentay murabbiyadii oo musqusha ka soo baxday, iyadoona gabadha u timid deetana badbaadisay. waxayna aragtay murabbiyadu in gabadhu ay ku jirtay halis oo ay dhima rabtay. maroodiga Ning Nong sanadkii 2004 markii ay kacday mawjad weyn oo tsunami ah oo dadka aad u leeday wadanka Thailand, gabadha yarta ee lagu magacaabo Amber Mason ayaa waxa ay la socotay maroodigeeda. gabadhaas oo jirtay 8 sano waxa ay la jirtay ciideeda si ay fasax uga soo qaadato wadanka Thailand, waxayna wadatay maroodiga yar ee Ning Nong. iyadoo la ciyaarayso gabadha yar maroodiga yar ee Ning Nong ayaa waxa uu dareemay maroodiga inay soo socoto mawjad weyn taasoo dhanka xeebta ka soo socotay. kadibna wuxuu la orday gabadha oo ku tuuray meel banaana horteedana istaagay si uu uga hor istaago mawjadaasi dadka leen rabtay. sidaas ayayna ku badbaaday gabadha yareed. xayawaanka gorillaha ama daanyeerka oo magaciisa la yiraahdo Jumbo sanadkii 1986 waxay ku caan baxay gorillaha Jumbo la yiraahdo buduulnimadiisa naadirka ah, kadib markii cunug 5 sano jiray oo ku dhacay wada qalad ah, taasi oo ahayd meel ay degan yihiin gorillaha xadiiqada xayawaanaadka ama beerta xayawaanka. cunuga yarkaahina wuxuu ka jabay gacanta iyo weliba lafa kamida madaxa oo jabay, laakiin nasiib wanaagiisa waxa uu ku dhacay meel gorilluhu uu degan yahay. gorillahaas oo magaciisu ahaa Jumbo kadibna waxay qaadeen cunuga yarka ah oo ay geeyeen meel aamin ah. daqiiqadooyin kadibna cunuga ayaa soo miirsaday, waxaana laga badbaaday halkaasi iyadoo ay qaadeen dadkii waardiyeen jiray beerta. ridii yartaaheed ee Mandy Noel Osborn waa nin beeraley ah. waxa uu lahaa tirooyin aad u badan oo xayawaana. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu galay koomo, weliba waxa uu ku galay koomadaasi halkii ariga uu ku xanaaneyn jiray. aad ayuu u qayliyay, cid maqashana ma lahan, wax maqlaahina ma aysan jirin. 5 maalin ayuu halkaasi yaalay oo uu awoodi waayay inuu dhaqaaqo, laakiinse agtiisa waxaa joogtay rida yarta ah ee Mandy. kadibna halkaasi ayuu caanaha uga maalayay. 5taasi maalin waxa uu ku noolaa caanaheeda oo kaliya, kaman ay si tagin ridaasi isaga oo kaliya, waxa ayna ku kaalmeysay inuu noolaado. ilaahay ayaa wax badbaadiyay 5 maalin oo kaamil ah inta aysan dhamaystirmin in la badbaadiyo ka hor. kadibna dadka ayaa u yimid oo halkaasi ka qaaday lana aaday dhanka dhakhtarka. yaanyoortii yareed ee Winnie habeenada kamida oo mugdi ah sanadkii 2007 waxay ku soo kacday Kathy Kezelin qaylada ama codka yaanyoorta oo ah maaw maaw. kadib markii isku dayday Kathy inay ka kacdo firaashka, waxa ay dareentay in uu dhib jiro, kadibna waxay garaacday alarmiga, waxaana halkaas ugu yimid booliska. sababta yaanyoorta u qaylisay oo gabadhaasi ay booliska ugu wacdana waxa ay ahayd baasiin furmay kadibna ku daatay guriga. taasina waxay ku dhaweyd in guriga dhan uu ku gubto. dadka halkaasi degnaa ayaa ku baraarugay dhibaatada ka dhacday halkaasi oo ay sababtay in lagu baraarugo yaanyoortii yareed ee Winnie. xayawaanka dolphin-ka ah ee wax badbaadiyay ama malayga 2 dolphin oo ah kuwa malayga badda gala ayaa waxa ay badbaadsheen nolosha wiil dhalinyaro ah oo sanadkiisu gaarayay 24 sano, magaciisana la dhihi jiray Todd Andrews.
kaasi oo halkaasi ku dabaalanayay weliba wuxuu ku dabaalanayay looxada khashabiga ah ee badda lagu galo. kadibna waxaa soo weeraray xayawaan dilaa ah. waxa uuna bilaabay xayawaankii dilaaga inuu qaniino wiilka uu gadaal ka soo weeraro. markii wiilku awoodi waayay inuu isbadbaadiyo ayaa waxaa gadaal ka soo baxay dolfinyaal ayagoona kor u soo tuuray wiilkaasi, kadibna uu ka soo badbaaday baddii uu ku jiray. malaygii caddaa. janalka waddanka Shiinaha ee magaciisa la yiraahdo Yang Yung ayaa waxa uu ka qayb qaadanayay musaabaqad ama tartano lagu galayay badda in la dhaxquuso ama xeebta in la dhaxquuso iyadoon aan la qaadanin waxyaabaha dadka kaalmeeya. kadibna waxaa badda halis ku galay gabar dhalinyaro ahayd oo ka mid ah dadkii tartamayay. kadibna waxa ay dareentay inay dhaqaaqi karin oo ay biyaha kor uga baxdo, laakiinse waxaa kaalmeeyay laba xayawaan oo inta qaadeen kor u soo tuuray, kadibna ay awooday in ay biyaha ka soo dhax baxdo.